بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. marka labaad runtii waxaan u mahad celinayaa oo hambalyaynayaa walaalihii afurkan hindisay kana soo shaqeeyey noo soo qurux badneeyeyna waxaan ka leeyahay ilaahay camalkiina iyo maxay ahayd muruqiina haynii laba jibaaro haynii saddex jibaaro bisha Ramadaan aynu ku jirno iyo waqtiga maanta aynu joogno ee waqtigii afurka ee ducada la aqbalay ilaahay anaga aqbalaan leenahay ducadaayna amiin. walaalahay hadalka dheerayn maaye hadal dhamaade ee waxaana daba socon hadalkii walaalkay Daahir Axmed Faarax gudoomiye Daahir Axmed Faaraxo wuxuu yiri waxa ina la horwad wadaa buu yiri sawir baa ina la horwad wadaa وارن صور بين الهرود ودا وحكلا إن الهرود ودا أو صباحي رجبا يا محي هيدي إن الهرود ودا مركا رجبا خبا سيرو جابا أفر سفاي لي هنا كيال شيء أنا بكون ديراني أنا رجاسي ورج أن دور سياسة ذلك أنا كل هين واحتر لتابسن كريو ولا جرنايو لهين أو هنتين أن oona lahayn magacna dalka runtii aanan ku lahayn waa rag marka ay sida ogsoontiin doorashooyin baa inagu soo wajahano ina foodayna soo hayo doorashooyin beena oo xor iyo xalaal ahayno oo de Ismaaciil Umar Geeli iyo afarta uu naas nuujiyay ay laqlaqdaan mooye maxay hayday doorashadaasi markay soo baxda ay foodaynagu soo qabato mud soo yiraahda si ay qabuuraha ay ka soo baxeen raggaabaan doonayaa inaan afar sifo leeyihiin ka sheego ku dheeraan maaye waa rabadaane waxa waa rag magaca mucaaradka sheegta ficilkooguna wax kale uu yahay waa rag mar ay hadlayaanna mucaarad sheeganaya laakiin tallaabadooda markaa daba gurtidna wax kale ah walaalahay waxa la yidhi been baa la weydiiyey su'aalo waxa laga yiri beenay goormaad waxtar leedahay beentii baa jawaabto waxay tiri waxaan waxtar leeyahay intay runtu ay maqan tahay oo runtu intay maqan tahay ayaa la igu muraadsanaa bay tiri marka raggaasi waxay ku muraadsanayaan doorashada xorta ahayn xalaasha ahayn ee beenta ah waa rag ku muraadsanaya oo dana gaara ku wata waana dantood doorkoogu maaha talada inay qabsadaan balse waa inay taliska siiyaan qurxin sawir muuqaal muujinaya doorashadaasi beenta ah inay tahay doorasho ay dhacasa ay jirto aragti kala duwan ay jirto oo tusaya marka way sawirayaan marka afarta sifood baan talaabsan ku dulaagi maayo sifada ugu horeysa waxa la yiri 1977 markii dagaalada nidaamkii militariga haaye Soomaaliya iyo Itoobiya uu dhex maray maxaabiis badan baa la qabtay maxaabiistii badnaa ee la qabtay waxa la yiri kuwii Soomaalida haaye jeelalka Itoobiya lagu hayay laba xaaladood oo adag bay la kulmeen baa la yiri xaaladda ugu horeysa la kulmeen waxa la yiri waa xaalad cunno xumo ah xaaladda labaadna waa xaalad caafimaad darro ayaa la yiri xaaladda cunno xumo haddaan soo qaadano waxa la yiri jeelalkii waxa loo kala saaray dadkii islaam iyo kristan baa loo saaray de Soomaalidu waa islaam bahay marka islaam iyo kristan baa loo kala saaray waxa laga yiri hilib maalin quraata toddobaadkiina la siinaya ya uu dhaleeliyaa Soomaali iyo hilibka uu dhaleeliyaa Soomaaligu soo maaha maxaa la yiri de Soomaali laga yiri hilib maalin quraataan ku siinaya ka warama waxa laga yiri waxaan ku siinayaa jimca muslimo kristanoona maalin axadaan ku siinayaa baa la yiri de sidaas arrintii u socotay in bay arkeen ragii booliiska haayee meesha ilaalinayay waxay arkeen maxbuus maalintii jimcaha Soomaaliya oo islaamna sheeganayay maalintii jimcahana safkii maxay ahaydey muslimka hilibka galayay maalintii axadana hilibkii kristanka galaya ay arkeen way u yeedheen waxay ka yidhaahdeen maxbuusow niyahow ma muslim baa tahay
mise kristan baad tahay ka yidhaahdeen wuxuu ugu jawaabuu ka yidhi hadba tii hilible ayaan ahay marka waxaan uga socdaa raggaasi sifada hore ugu horeysay leeyihiin waa sidaasoo hadba tii hilible unbay la joogaan kowdhe maanta hadday innaka waxay nagu ogaayeen way nala joogi lahaayeen markaa sifada ugu horeysay leeyihiin waxa weeye waa bilaa mabda waa bilaa maxay ahayday qiyam waa bilaa principe sans principe donc sans scrupule waa sifada ugu horeysa ku dheeraan maayo sifada labaad waxaa la yidhi waa sifada labaad waxa weeye nidaamka markay la joogaan way gurguurtaanoo way sasabtaanoo way hoos joogaanoo dee wax yar bay ka sugayaan bulshada markay hor yimaadaanna dee waxay iska dhigaan cod weyn intay ku hadlaan bay geesiyaal iska dhigaan oo annaku waxaanu nahay annaku waxaan sidnaa hadda waxay yihiin ma jirtay waa faaruq hadalkoogu waxna ma sidaane waxay sidaanna waa faaruq wax yaroo garaam yaroo jeebada lagu soo bixiyey sidaan markaa waa sifada labaade nidaamkana markay joogaan way gurguuranayaan bulshada markay hor joogaanna geesinimo ayay sheeganayaan waxaa weeye waa laba wajiile waa la duplicité le double visage marka sifada labaad ay leeyihiin waa maxay laba wajiile oo ilaahay wuxuu inoogu sheegay quraanka meeshuu laba wajiilaha dhigay oo muxuu inaga yidhi ina almunaafiqiina fii darki alasfal min annaari walan tajida lahum nasiira wuxuu yidhi maxay ahayday munaafiqiinta waxaan dejinayaa dabaqada ugu hooseysa ee naarta mana helayaan cid u heelisa marka waxaan leenahay bishaa rabadaan aynu ku jirno waqtigaa afurtay la afurayay ducadu ay maxay ahayday mustijaabo tahay ilaahay laba maxay wajilayna kama dhigo aamiin daha aamiin sifada saddexaad ay leeyihiin waan soo duduubina waxa weeye hunguri waxaa la yidhi waxay doorashooyinka mud un ay ugu soo yidhaahdaan inay unuunuf yar soo qaataan garaam yar inay soo qaataan oo yaka dan dal iyo dan shacab iyo mustaqbal ummadeed waxba kama gelin maxaa ugu weyn waa hungurigooga dee waatii soomaalidana hore u tiri nin hunguri weyn tala ma yaqaan markaa rag tala la weydiiyana maaha tala yakuna maba garanayaan waxaan ku soo xidhi sifada afraad ay leeyihiin raggaasi waxaa weeye allaahuma salli calaa maxamed waa maxishoodayaal oo xishood male oo waxayna xishood u lahayn yaku waxay ilaahdaan waxay aaminsan yihiin fikirka yidhaahdaa waa dadku wax kasta way iloobaane way iloobi doonaane aniga waxa iigu weyn garaamka yar iyo unuunufka yar ee jeebada ku rinayo ayaa iigu weyn marka waxay afartaa sifood bay leeyihiin waxaan kaga bixi laakiin waxay ilowsan yihiin inay tahay afartaas sifood iyo tallaabooyinka ay qaadayaanba khiyaano inay tahay ayay iloobayaan marka lababa way wada wajihi doonaan bulshadu way garanaysaa inay khiyaanaynayaan oo bulshadu waxay kala noqotaa kalsoonida ma siiso kaasoo kale laba nidaamkaa isticmaalaya isagu ma ixtiraamo oo muxuu ixtiraamayn wuxuu u arkayaa un mouchoir, un Kleenex qu'il a utilisé ou aaladu isticmaalo marka dambe muxuu waxaya sida in ala wajiga dhidhidka markaas waa la tuurama sidaas oo kale inuu isticmaalay oo tuur un mouchoir qu'il a utilisé walaalahay marka waxaan oran ku soo xiri igaraalahaada hadalka waxay ku dambeeyaan waxa weey dadkaasi ils sont nécessaires à la mascarade électorale mais ils sont exclus à jamais de l'histoire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.